dad qaar hataa wadada markaa ku arkay inaa weji iska qariya naqataade dadka aad qofka hal mar isoo fiiriyo mar labaad oo isoo fiirina ama sidii oo macnaa daymada ugu hayna ilaa iyo ku hubsado ama oo ila hadlo moola hadda labadan biroosh ma aadin waxaan u aadi waayeen waxay tahay dadkii aba ku dhahayba sida Cali Macal Daawud waa kana sida Cali Macal Daawud khudaaru gadanaya yah comment ma la hore muuqaal laga duub comment waxa ka arkay gabar leeyso maxaa ka qaadi kartiin sida Cali waaye balcadoon khudaar ku gadooya niman waaweyn waxa arkay oo ay dhaheen sida Cali Macal Daawud cidiis waxay ka ogashahay half million in ninkaas la soo daayo marka hadii aad adiga lacagta raadina agtaada taalaay hadii aad soo deeyno oo adiga booskiisa kugu bedelno kabaran saaxiibkeeda tee oo lacagtaas iska dhooqno nin ayaabin ayaa yiri waa yaabin nin ayaabin ayaa yiri waa yaabin ninka iminka aad u jeedaan magaalada Muqdisho meel oo ka gal ayuu leeyahay kadib markii Daawud la leeyahayba shacabka Soomaaliyeed ee cid walba oo taqaanaba waninkan waa Sida Cali soo baxsaday waninkan waa ninka xaaskiisa gubay soo baxsaday waninkan hal si fiican loo fiirsho war waa isagii war gacanta gubneed meeday ya ninkan Daawud meel oo gala ayuu leeyahay saaxiibadiisa gaarkaana waxay kula taliyeenba in 1 milyan iyo wax ka badan uu qaataba isla markaasna lacag ay soo doonata maadaama ninkii Sida Cali oo meesha taagan uu yahayba ninkan goob ganacsi oo qudaar ayuu leeyahay laakiin haatan goobtiisa ganacsiga waa tagi laayahay gurigiisna waa tagi laayahay goobaha lagu qaxweyna waa tagi laayahay magaaladii meel oo lagu dhigayo laayahay sidaas ayaa loo raadinayaa sidaas qof walbo arko war waa isaga qabta war waa ninkii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكل وعنا وجسن مال ولي بعالم كان قاعد يرسل مانته يمرك المقال عصوم مقال كان داود يا المانتنا سيدا إمك هذا رتان وحكوسه قاعدتنا سيدا علم عن داود وحاسكي سجوبي أونين أن لقى قون داود يا الصباحي حصلت الشكل المقال كنت سيدو استاجن كار هذا برتا يوتيوب كوكو عصوم تا داود يا لحي لما تنكم كسبسكرايب أيام كوسي سعنا سيدا سنقدها هذا يوم ما سنتين صاحبه هرنو الجوي كو عصومنا madax ayay noo saarantiin muuqaalka laag dhahdana waxay naga saacideysaa shanta Soomaaliyeed oo gaaro siina share gareeyo sidaas u taabta waata Daawud ninka halka idin kaga muuqanaya Sida Cali Macal Daawud ninkii xaaskiisa gubay oo meesha taagan weeyaan dhan walba ayuu ogeeyaa ninkaana nin wuxuu iska maskiin oo qudaar gadanaya oo xaaskiisa iyo caruurtiisa kaga dhex joogayo laakiin haatan qoyskiisu waa ka barakacay oo magaalada meelba sidaas ay loo raadinaya qofku ag maraba war ninka odayga weeyaan war waa isagii ninkan iyo ninka xiran waa isagoo meesha taagan maba laga yaqaanba ninkii Sida Cali oo meesha taagan weeyaan qofkii arkaba waxa leeyahay war ninka goormeel soo daayay ninka goormeel soo daayay subxaanka cadiim war ma la dilo ninkii markii dhigtiisa ku soo dhacdo dhowr mar ma la dilo war muu lacag u qaato war muu iska baxsado war bajaajku waa raaci laayay oo goobaha maqaaxyada waa tagi laayay oo masaajidda cibaadada waa gali laayay oo gurigiis waa tagi laayay oo saaxiibadiis oo deegaankii wixlanba waa ka barakacay ninkan odaga sida iminka aad aragtaan marka wareysigan ayaa laga soo qabtay wuxuu sheegayaa marka xaaladda iminka taagan ayuu ka sheekeynaya oo waliba wuxuu la yaabayayba cid walba ag marta in ninkii oo isaga ahaa lagu miisaamo فيسكا جركا قابكا سو جيدشada waa ninka odaga oo meesha taagan weeyaan xaaladda marka ninkan soo wajaaday ayuu marka sheegay inay marka xaalad qatar tahay oo goobtiisa ganacsiga gaari kareeninba oo meelihii publiga oo mari kareeninba maadaama ninka uu yahay kiis culus lagu haysto maadaama ninka uu yahay kiis culus lagu haysto bal marka Daawud Cali Macal Daawud waa kana oo magaal ku qan oo ganacsi ku haya oo soo baxsaday haddana commentiga fiiriyay ay dadku caadi maahan dad waxay ku leeyihiin aad gacanta gubneed war Sida Cali Macal Daawud dawladda waxay u diisay warna way u sigin firkiisa waa ninkaas dadoo dambi ka galay mafahanti marka dadku dambi ka galay yaani u sigay waa had aragtayba ka dhaxaysa balaala dil soo daayo dadkaas haday arkaan maxay ku sameey karaan dad qaar hataa wadada marka ku arkay inay weji iska qariya naqataade dadka aad qofka hal mar isoo fiiriyo mar labaad oo isoo fiirina ama sidii oo macna daymada ugu hayna ilaa iyo ku hubsado ama oo ila hadlo moola hadda labadan biroosh ma aadin waxaan u aadi waayeen waxay tahay waa ka saabarka ninkan marka xaaladaas ayuu ku jira iminka aad u jeedaan ninkan odaga xaaladaas iminka aad u jeedaan ayuu ku jira ilaa dhibano saan waa lagu duceystaa dhibka waa lagu duceystaa
bal u fiirsada nin aad ahayn haddii lagu yidhaahdo isaga ayaa tahay maxaa sameynay ninkaan toos ayuu u barakac marka qudaar ayuu isku gedi jiray waa kaas qudaar ayuu isku gedi jiray waa iska biila jiray qudaartiisa wix yar oo ka hela ayuu gurigiis kula noqon jiray hadda qudaartiin waa loo aqoonsaday maliyinkan iyo maaqaalatii lacagaa la sheegayna ma hayo ninka iminka lagu miisaalayna maaha lacag maayo gurigiis ma tegi karo waa kaasa meel oo daawadayaal marka lagu dhiga ayuu leeyahay oo meesha oo tagaba war waa isaga baa la qabto war waa isaga baa la dilo soomaali ilaahay kuma daba dhigo soomaali ilaahay kuma daba dhigo waxaaba kaaga sii daranba bartiisa gaarkaa markuu soo galo komitiyada waxaa loo raacinayaa inaad soo fakato waa ku ognaa waa ku dilaynaa sidan ayaa ku yeelaynaa ninkii isaga waale ayuu ku dhow yahay marka ninkaan isaga waale ayuu ku dhow yahay oo weliba daawadayaal waxaaba kaaga sii daranba qoyskiisa xataa gaarkaa taleefanka waa ka dansaday oo wuxuu ka cabsi qabaaba dad isaga raadinaya inay soo wacaan oo sida caliga raadinaya inay soo wacaan ayuu ka cabsanayaaba taleefankiisa ma daari karo magaalada meel ma tegi karo gurigiisa ma tegi karayo waa kaasaa marka xaaladaas iminka aad ujeedaan ayuu marka ku jiraa soomaaliduna ogaada soomaaliduna waynu ku garaadayaal weliba waxay arkaana ka maaran oo waxayba isleeyihiinba waaba ninkii isagaa kiiska adag loo xiray miyaa magaalo dhex maraya sidaas ayay xaaladda taagan tahay isaguna meel uu galooba laayahayba maadaama ninkii isaga u egyahay sidaas marka maxaa la yidhi laba kala barida kala warla sheekada halkaasi taaganta ama kalamaan saa u fahantiidba ama kalamaan haa ama kalamaan saa u fahantiidba sheekada halkaasi taagan tahay isagu wuxuu taagan yahay war dadkaan maxay ugu soo diray iyaguna waxay taagan sidee ninkaan xabsi ugu soo baxay isagu wuxuu taagan yahay war dadkaan aniga maxaa igu soo diray ayuu taagan yahay oo qudaarteeda nolosheeda wixii geerkaa iska watay maxay ku aqoonsanayaan iyaguna waxay taagan sidee ninkaan odagaa kusoo baxsan waa kaa marka ninkaan maalmaha soo socdoon u waalan wax kale ayaa jira maadaama lug meel uu dhigo la-yahay inuu waasho ayuu ku dhow yahay hadduu waashona shacabka soomaaliya ayaa ka dambeeyaan hadduu waasho shacabka soomaaliya waayo mootadii hadduu raacdo bajaajilihii gadaal uu fiirina wuxuu leeyahay waryaa yaa ninkii odagaa soo matid goormaa soo baxsatay dukaan hadduu galo dadka wax gadana dhan waa soo wada eegayaan masaajidka hadduu galo salaada xiran maa ka agdhow yaa waa la fiirinaya leeyahay waali maxay dhaantaa marka waalidii maxay dhaantaa waata daawadayaal marka waa dhankaaga ninkan sida cali macalin daa-uud u eg halkee ku dambeyn karaya ayay kula tahay haddii xaaladiisa sidan kusii socotana maxaa laga filan karaya shacabka soomaaliyeedna ninkan miskiinka maxay ugu waaliyaan aragtida hoos ugu ladaag dhammaadkeedaa soo gaartan muuqaal kale ayaa ka ilmaamin mar kalena subscribe-ka sidaas naga dheh siina sheer garay